بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة جمهورية الفدرالية الصومالية محمد حسين روبله waxa uu galabta xafiiskiisa kula kulmay xubnaha ka socday midowga marashaxiinta Soomaaliyeed oo ay horkacayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed xubnahaas oo ay iska soo doorteen guddiga murashaxiinta ama midowga marashaxiinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay soo gudbiyeen liiska xubnaha cabashada ay ka qabaan ee labada qaybood ee kuwa haddii aan lahayn kuwa federaalka iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada liiskaasi ra'iisul wasaaruhu uu ka qaabilay xubnahaasi ka socday midowga musharaxiinta waxaana uu isla maantaba uu gudbiyay xubnihii guddiga golaha wasiirada ee horey uu xil saaray arrinta soo hubinta guddiyadaasi marka ra'iisul wasaaruhu sharaf bay u ahayd inuu xafiiskiisa ku qaabilo uu soo dhaweeyo madaxdii hore isla markaana si qalbi furnaana waxyaabaha cabashada ay ka qabaan si dalkan doorasho uu aado ayuu maaragtay kulankaas la xiriiray kadibna shaqadii haddii baydmo way sii socon doontaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu samayn doonaa in liiskaas marka ay u soo gudbiyaan xubnaha golaha wasiirada uu xil saaray uu hubiyo oo isagana marka ugu dambeyntii uu kuwii lagu bedeli lahaa la soo saaro digreeto lagu soo saaro qofkii la hubiya ee aan maaragtay aan soo gelin ama eedeymaha loo soo jeeday aanay daw ahayna sidoo kale waa lagu celin doonaa oo guddiga ayuu xubin kasii ahaan doonaa marka arrintaas oo dhan waxaa hubinaya guddigaas uu ra'iisul wasaaruhu ku aaminay hawshaasi kadibna isaga ayaa xaqiijinta kama dambaysta ama go'aanka kama dambaysta qaadan doona aad iyo aad buuna runtii ugu faraxsanaa ra'iisul wasaaruhu inuu soo dhaweeyo madaxdii Soomaaliya oo xafiiskiisa ay ugu yimaadaan runtii kulankan wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan